Hanaan male adduunyadu haddaan la ishaleelayn halkaad maanta joogtana jacayl baan la hurayn. Maanta waxaan idin wadaa maxaad kala socotaa xiriirka ka dhaxeeya Faadumo Riyaad iyo sidoo kale fanaanka Cali Saki. Waa tuma Faadumo Riyaad wax badan ka ogow taariikhda labadan shaqsi. Haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena, fadlan subscribe saaro si aad u hesho warbixinada iyo muuqaalada aynu halkan soo gelino. magaceeda oo buuxa waa Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyaad, kana mid ah wariyaasha Soomaaliyeed saaxada fankana kaga qayb qaadata barnaamijyada fanka iyo suugaanta. Dadaal xoog leh ayay ku bixisay sidii mar ay ku noqon lahayd saxafiyad. Halgankeeda saxaafadda waxa ay ka soo bilowday gobolka Togdheer, magaalada Burco, halkaas oo ah halkii ay ku dhalatay sanadii 1993. Faadumo Riyaad waa mid qaali ku ah fanaan walba oo ay wareysi ka qaado. haddii aan si kale kuugu dhigana farxadeeda qalbigani sahwiga saldhiga u noqdo saqiirkii dhashani intay sabiyihiin samir baan ku faraya bal dhinaca kale aynu u jaleecno saxafiyadan nolosheeda gaarka ah iyo sidoo kale goobaha dalxiiska. badi waqtigeeda nolosha waxa ay wada qaataan fanaanka Cali Saki, iyadoo ay jirto xiriir ka dhaxeeya Faadumo Riyaad iyo sidoo kale fanaanka Cali Saki. xiriirkaas oo inta badan bulshada taageerada u ah labadan shaqsi ay soo ku baraarugsaneen. waxaa jira hees lagu ammaanayo dhaldhalaalka saxafiyadan Faadumo Riyaad. reslo barwaaqo dhaxtaal dhawaystirane dhaqaaq waratee hodanad habeen dhalatee sidii dhamankii u dhoorsanida dhulko reslo barwaaqo dhaxtaal dhawaystirane dhaqaaq waratee hodanad habeen dhalatee sidii dhamankii u dhoorsanida dhulko reslo barwaaqo dhaxtaal dhamaystiranay dhaqaaq baratee dhirtoo hodana habeen dhalato sidii dhamankii u dhowrsanida. waa erayada mucjisada leh ee heesta lagu ammaanayo saxafiyada Faadumo Riyaad. reslo barwaaqo dhaxtaal dhawaystirane dhaqaaq waratee hodanad habeen dhalatee sidii dhamankii u dhoorsanida. erayada macaan ee idin soo gaaraya waxaa curiyay abwaanad Najmo Suudi, halka laxanka uu ku laray fanaanka weyn ee Xariir Axmed. heestan ayaa ah hees ammaan ah oo dhowaanahan loo soo qaaday saxafiyada Faadumo Riyaad, taasi oo lagu ammaanayo dhaldhalaalkeeda iyo habboonaanta qaabkeeda. sidoo kale dhanka kale haddaynu eegno fanaanka Cali Saki magaciisa oo saddexan waa Cali Cabdiraxmaan Cabdilaahi, ku dhashay Burco. fanaankan ayaa ah fanaan taageero weyn ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed. inta badan bulshada taageerada u ah fanaankani ayaan wax aragti ah ka haysan cidda xiriirka uu kala dhaxeeyo iyo sidoo kale xiriirka ay wadaagaan isaga iyo sidoo kale saxafiyada Faadumo Riyaad. isu soo dhawaanshaha labadan shaqsi waa ay sahlanayd maadaama labaduba ay yihiin fanaan iyo sidoo kale saxafi bulshada Soomaaliyeed magac weyn ku dhex leh. halganka ay labadan shaqsi u galeen sidii ay magac u sameyn lahaayeen ayaa isu soo dhaweeyay una fududeeyay isbarashadooda. labadan shaqsi ayaa xiriirkooda waxa uu ka bilowday barta WhatsApp, halkaasi oo muddo ay ka wada xiriirayeen. wada sheekaysiga labadan shaqsi muddo dheer ayuu soo jiitamayay, iyadoo ay ka wada xiriirayeen baraha bulshadu ay ugu isticmaalka badan tahay, halka markii hore xiriirkooda uu ka soo bilowday WhatsApp. fanaankan iyo sidoo kale saxafiyadan ayaan inta badan aysan wax war u hayn xiriirka ka dhaxeeya bulshada taageerada weyn u haya labadan shaqsi.